cabdimaalig waxa weeyaan waa samafale dad badan buu gacanta ku hayay dad badan buu wax u qabtay dad buu guryo u dhisay dad buu ku badbaadiyay ilaahay ka sokow anuu ka mid ahay cabdimaalig waa macallin dhiga luuqadda carabiga jeelka weyn ka dhiga dad badan oo maxaabiis ay ka faa'iideysay inay shasbad qabtay in kale la xaaladeedu wali halana waxaan ku wada inaan maxay tahay inaan wali waxba looma qaban laakiin dhaqaatiirtii wana sugaynaa ilaa 7 ilaa hadda way taala ilaa 7 ilaa hadda way taala maadaama xaaladeedu xun tahay madaxa meel la fuujaban yihiin halkan ilaa sanko ilaa intaas ilaa dhinacaas oo dhan way fuuqsantay ilaa isha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana daawadayaal soo dhawaada oo markale iyo walaalkan aadan karaama halka tabcan iga daawanaysan oo barta YouTube-ka ku leeyahay aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horeysay in soo booqato fadlan subscribe nagu sharaf riixka malaalka cas noqo qofka ugu horeeyay soo gaaraan muuqaalada dhacdooyinka iyo sidoo kale arrimaha kale ee xasaasiga ah ku gudbino halkan maanta waxaan ku hayaa markaasi laba muuqaal oo kala duwan oo ku saabsan dhacdo naxdin loo markaasi ka dhacday Hargeysa iyo sheeko ku saabsan markaasi xaaladda nololeed ee haatan wariyaha caanka ah ee ku xidhan Somaliland ee lagu magacaabo Cabdimaalig Muuse Coldoon balse intaynan qodobadaasi u gudbin waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqateen subscribe noo saarto riixda gabalka cas isla markaana noqoto qofka ugu horeeyay soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka xiisaha leh haddii aad hore inoola joogteen kuma aanay ilaawin fadlan muuqaalka like-ta muhiim ayay u tahay si uu u baaho bulshada u gaadho aan ku socono markaasi muuqaalkeena iyo qodobada markaasi aan maanta kusoo qaadanayno qodobka koowaad haddaan idin soo qabto waa gabadhii yarayd markaasi xalay uu waraabuhu ku dafay magaalada Hargeysa ayaa waxaa markaasi la wareystay aabaheed oo ka warbixinaya markaasi xaaladda ay markaasi ku sugan tahay gabadha yari dhacdadan ayaa waxay ahayd dhacdo la yaab ku riday dhammaanba dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo cid kastoo Soomaaliyeed oo maqashayba iyada oo markaasi gabadha yar lagu tacaalayo xaaladeeda isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa bal aynu fiirino markaasi dhacdadan la yaabka leh iyo aabaha gabadhaas dhalay oo ka warbixinaya haatan sida ay wax u dhaceen inay shasbad qabtay in kale la xaaladeedu wali halana waxaan ku wada inaan maxay tahay inaan wali waxba looma qaban laakiin dhaqaatiirtii wana sugaynaa ilaa 7 ilaa hadda way taala ilaa 7 ilaa hadda way taala maadaama xaaladeedu xun tahay madaxa meel la fuujaban yihiin halkan ilaa sanko ilaa intaas ilaa dhinacaas oo dhan way fuuqsantay ilaa isha. xalay magaalada Hargeysa waxa ka dhacday dhacdo aad u la yaab badan haddaba dhacdadan ayaa waxay ahayd ilmo yar oo habeenkii xalay ahaa uu qaatay waraabe saacado badan oo la raadinayay ilmaha yar waa laga soo reebay waraabahaasi haddaba telefishinka CBA ayaa waxa uu kuur galay ilmaha yar xaaladiisa oo lagu dabiibayay dhakhtarka weyne Hargeysa hadda garabkayga waxa taagan aabihii xalay ilmihiisa yar cunay waraabuhu bal waxaad nooga warbixisaa walaal ilmaha yar xaalkiisa markii uu bahalku qaatay halkii joogtay ama guriga ugu soo galay oo meel cidlaa uu ka helay bal noo waran walaalo inanta yar haddaan xaalkeeda ka warbixiyo anigu horta markii hore magaalada maan joognay barbanaan ku maqnaa markaa salaadii maqrib markay ahayd salaadii maqrib markii lagu jiray adigu masaajidada barkood laga baxay barkoodna lagu wasii jiray bay ahayd markaa inan kale xaafadda joogtay bay maxay tahay inaan ayay albaabay ka soo baxeen dabeetana albaab kale oo maxay tahay inaan isla guriga un ka mid ah ayay inantii ka weynaad gashay iyaduna way daba socotay waa ilmo yaroo 5 jira markaa dabeetana halkaa albaabka labada albaab dhexdoodu kala bowday maxay tahay inaan baalku markaa goormaad soo gaadhsiiseen dhakhtarka bal ilaa hadda tayar xaaladeeda ka waran la xaaladeedu wali halana waxaan ku wada inaan maxay tahay inaan wali waxba looma qaban laakiin dhaqaatiirtii wana sugaynaa xaaladeedu waa adag tahay markaa kolley sawirro badan baa jira iyo kolley dee adigu ma garanaysaa dee wada tashi iyo ma garanaysaa dee ay siday dee nagu yidhahdeen dhaqaatiirtu inay dee ka wada tashadaan inaan maadaama xaaladeedu xun tahay madaxa meel la fuujaban yihiin halkan ilaa sanko ilaa intaas ilaa dhinacaas oo dhan way fuuqsantay ilaa isha markaa imika hadda sawirana loo diray maxay tahay inaan nala yidhi malhal ka soo sawira insha allah intaas umanu eeginaa wixii ka dambeeyana waxqabadka eeginaa markaan soo xaqiijino maxay tahay sawirkaa inaan maxay tahay ishaas inay shasbad qabtay in kale markaa weeye dhakhaatiirta markaad dhakhtarka soo gaadhsiiseen ilaa goormay ahayd waxay 7 xalay tole ahayd ilaa 7 ilaa hadda way taala ilaa 7 ilaa hadda way taala waxay u qabteen inta saacadaha ay taalay dhakhtarka wallahi inuu dhakhaatiirtu may dadaal yareen mid waliba waa eegayay waa la sawiray maxay tahay inaan haddana kolley
adigu xaalad kolley dee ka ballaaran baa meesha taalloo dee siday nagu yidhaahdeen wadatashi iyo magaranaysaa mar waxaa inaan iyo dhakhtarkii u gaarka ahaa inaan wejiga fayska oo adigu saaka yimi markii dambena isaga laftiisa galay qaliimo kale adigu bacdal casar baanu insha allah ka rajaynayna balle dee waxay qaban karaan qabtaan marka sawirkaan aanu soo xaqiijina maxay tahay inaan malhal ay noo direen wallaahi wax kale codsan maayo laakiinse adigu waa inay ummadda islaamka iyo soo taxsiil ma xirmo codsan aabaha gabadha yareed dhacdadii naxdinta lahayd ee ka dhacday magaalada Hargeysa waa gabadh yareed ee waraabuhu ku dafay xaaladda fiidkii magaalada Hargeysa ama ku dhaawacay ama markaasi uu ku waxyeeleeyay ilaahay hawbooga dhayo caafimaad sareecan ha siiyo haddii aynu intaas sheekadaasi kaga soo gudubno waxaan jeclaan lahaa sidoo kale bal halkan inaan idinku soo gudbiyo markaasi muuqaal ku saabsan xaaladda markaasi nololeed wariyihii caanka ahaa ee cabdimaalig muuse coldoon oo intii muddo ahaaba ku xidhnaa xabsi ku yaala somalilan wariye khadar macalin deeq oo ka mid ah wariyaasha sida weyn lagu yaqaano magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markaasi inoo soo tabiyey xaaladii ugu dambeysay cabdimaalig muuse coldoon maadaama uu ku booqday xabsiga uu ku jiro markaasi cabdimaalig muuse coldoon waxaana uu ka warbixiyey markaasi xaaladiisa walaa inu muuqaalkaasna markaasi isla fiirino cabdimaalig waxa weeyaan waa samafale dad badan buu gacanta ku hayay dad badan buu wax u qabtay dad buu guryo u dhisay dad buu ku badbaadiyey ilaahay ka sokow anuu ka mid ahay cabdimaalig waa macallin dhiga luuqadda carabiga jeelka weyn ka dhiga dad badan oo maxaabiis ay ka faa'iideysteen suxufi khadar macalin deeq oo ka mid ah suxufiyiinta waaweyn ee Soomaaliland in muddo aan xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta waxa uu xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ku booqday suxufi cabdimaalig muuse coldoon oo isaguna halkaasi ku xidhan isla markaasina qayb ka ahaa in suxufigani xaalad caafimaad loogu qaado dalka Hindiya waxaan ahay suxufi khadar macalin deeq waxaan imika ka soo baxay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxaan ku soo booqday saaxiibkay walaalkay samafale cabdimaalig sheekh muuse coldoon waxaan ugu tagay mahadnaq aan uga mahadnaqayay inuu aniga ii diray dhakhtar dibadeed anoo xaaladdeedu aad u jilicsan tahay kadib markii uu ka hawlgalay cabdimaalig taasaan uga mahad celinay ugu tagay xaaladdiisuna way fiicnayd xaaladdiisana waan soo wareysanay waan soo ogaanay xaaladdiisuna aad bay u fiican tahay alxamdulillaah wax dhib oo uu qabay ma sheegin waan fiicanay buu igu yidhi cabdimaalig waxa weeyaan waa samafale dad badan buu gacanta ku hayay dad badan buu wax u qabtay dad buu guryo u dhisay dad buu ku badbaadiyey ilaahay ka sokow anuu ka mid ahay marka cabdimaalig waxaan uga soo mahad celinayay uun sidaa uu igu gurmaday ayuun baan uga soo mahad celinayay uun ugu tegey cabdimaalig waa macallin dhiga luuqadda carabiga jeelka weyn ka dhiga dad badan oo maxaabiis ay ka faa'iideysteen marka insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa inuu dhowaan soo bixi doono isagoo caafimaad qaba marka waa mahadnaq baan ugu tagay imakana waxaan leeyahay walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay kun jeer aad baad u mahadsan tahay oo ku mahad celinaya abaalkaaga ma gudi karo waana insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa inaad xorriyaddaada aad dhowaan heli doonto ilaahay idamkii marka caafimaadkiisuna wuu fiican yahay saas baan ugu tagay aad iyo aad baad mahadsantahay ciidanku say kugu fudeydiyeen booqashadaada wallaahi ciidanku way ii fudeydiyeen aad bayna ugu mahadsan yihiin aad bay ugu mahadsan yihiin ciidanku ugu mahadnaqayaa inay sii daayeen ii fudeydiyeen cabdimaalig isagoo jeelka ku jira anoo 2 cisho jooga oo dhakhtar ka imid salaasadii oo dal ku soo laabtay inay durba ii fudeydiyeen inaan booqdo oon arko isagoo maxbuusa aad bay ugu mahadsan yihiin waan u mahadnaqay waa khadar macalin deeq oo markaasi ka warbixinayay xaaladda cabdimaalig muuse coldoon oo si xaq darra ah markaasi ugu xidhan mid ka mid ah xabsiyada Somaliland kolley xaqa haddii afka la qabto feedhaha ayuu ka dilaacaa ummadda Soomaaliyeed waxaan markaasi usoo jeedin lahaa in ay si dhow ula socdaan xaaladda ninkaasi wariyaha ee ku xidhan Somaliland iyo sidoo kale 2 qoys oo kala duwan oo uu leeyahay markaasi iyo carruurtiisa intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynayaa ama muuqaalka kusoo afmeerayaa walaalkan aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay aad ina soo booqato fadlan subscribe ugu sharaf riixga bareelka casna qofka ugu horreeya ay soo gaadhaan muuqaalada dhacdooyinka iyo waxyaabaha kala duwan ee xiisaha leh halkan kusoo gudbiyo haddii aad horey inoola joogtayna aad iyo aad baad mahadsan tahay madaxa ayaad inoo saaran tahay in muuqaalka like muhiim ayay u tahay muuqaalka si uu baaho bulshada u gaadho markaasi waxaan jeclahay muuqaalka inaad like fara badan inoo soo saartaan tan iyo muuqaalkan mid lamid ah intaan ku kulmayna waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu